Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada youtube-kayga cabdikariim daahir. barnaamijka maanta aan suubinaya wuxuu noqonaa wax loo yaqaano CMD tricks, command line means command prompt. tusaale ahaan computerkaada applicationada sida caadiga loo soo daaro qof walba u yaqaana, laakiin maanta waxaa baranay qaab kood sida ugu soo daari, qaarkoodna easy waa fudud yihiin. marka hadda tusaale ahaan waxaa tijaabinaa ababka qaar searching-ka ku raadina caadi u daara. tusaale ahaan wordpad oo kale, notepad oo kale. hadda calculator ka bilaaba, waxaan hoos qaybta kor calculator waa isla aragnaa calculator-ka enter calculator sidaan ku soo daarma. marka adigoo isticmaalay CMD qaabkee sidaan ku soo saaray, waxaan rabaa tusaale ahaan waxaa tijaabinaa notepad-kan searching-ka note hadaa qorti isla markuu ku soo baxaa qaab CMD code ahaan sida ugu soo saari kartaa. hadda waxaan tijaabinaa wordpad code kala tijaabinaa oo waxyaabo lagu qorto sida wordka oo kale. marka meeshan waxaan ku qoraa word, midkaan wordka oo customer office-ka, midkaan kale wordpad-ka window uu raacsan yahay, asigana waa kana waxaa loo yaqaanaa wordpad document. waxaa kaloo tijaabinaa wax loo yaqaano CMD intaana galin on screen keyboard. on screen keyboard ka waxaa waa keyboard virtual oo shaashadu ku soo fuulay oo wax ku qorqori kartid. tusaalaan keyboard-ka dooya xarfaha qaar ka helisiin kana isticmaali kartaa. hadda marka waxa uu guda galaa qaybta CMD-ga qaab kood ahaan ayaa ku soo daara CMD marka soo gal hal mar farta aad u yar, farta weyneysana properties large-ga dhig farta, sidoo kale font-ga ayaan doonaa qaybta kore ee font ee ku qoranta 24 it's okay wa 38 24 okay 24 it's okay. aad xogaa farta si nadiif ayaa u arkayna. waxaan ka bilaabaa calculator ayaan ka bilaabaa. adaati calculator ka sala aragna searching-ka ku qoray qaab kood ahaan ayaan ku soo rangareynaa calc enter. isla markaa aragna calculator-ka ayaa soo daaran calculator-kii caadiga hal mar marka kan close ayaan iska dheynaa. waxaa kaloo tijaabinaynaa notepad oo dhameystiran ayaa qoray enter. waxaa ula jeedaa on screen keyboard ooda on s oo screen iyo keyboard waa kana keyboard-ka data oo virtual-ka on screen keyboard asigana isla aragnaa close-ga dheh. waxaa kaloo tijaabinaa meeshaan wordpad-ki waxaa qoray asigana right enter. isla markaa waxaa soo boodaayo wordpad-ki waa data aan daaray qaybta kore isla aragnaa wordpad oo document okay close-ga dheh asigana. waxaa kaloo tijaabinaa meeshaan ku qoraynaa intaa hadda waa soo tijaabi qaar kaloo badan oo kooda jiro qaybta hoosena waa soo dhigaa. hadda control panel-ka ayaa noo soo daarmay. control-ka qoro waxaa soo booday control panel-ka this is control panel asagana close-ga dheh. waxaa kaloo tijaabinaynaa control panel waa isla aragnaa time date dot cb enter. waxaa soo kacay date and time saacada iyo taariikhda iyo meesha ka saaleed. marka kood ahaan asin ku soo rangareyn wasala aragnaa hadda date-ka oo isla uu sheegay January koodeeda 2020 okay. time iyo date ayadana .cpl waa tijaabin. window version marka meesha waxaan ku qoraynaa waxaan rabaa window version-ka oo ina ogaado ver oo var oo version enter. waxaa ii soo baxaya waa isla aragnaa window 10 Microsoft Windows ayaa soo saartay shirkadda version-kiisana waa kana version-ka ayadana waa isla aragnaa version-ka window-ga qaabkaas markuu waa kartaa window-gaada version-kiisa. task manager mgr oo task manager enter dheh.
by shortcut ahaan oo computerka waxa ku soo gali kartaa control plus alt plus del hadda programkaas daaran kaliya waa command prompt oo cmd ga bas waa kan daaran marka close iska dheh qaabkaas ayadan ku gali kartaa task manager-ka waxa kale oo tijaabinaynaa window information inuu iga siiyo warbixin oo waxa ku saabsan window inuu iga siiyo ayadan qaab code ahaan ayaan una soo saarnaa marka meesha waxa ku qoraa ms info 32 means Microsoft information 32 qaybta marka geeska oo dhanka right-ka system information waxa loo jeedna qaybta dhanka right-ka oo isna operating system ku nooc Windows 10 waxa uu sheegaa version ku yahay manufacturer shirkad soo saartay system name-ka manufacturer waxyaabahaas oo dhan model-ka type-ka 64 bit ama 32 bit sidoo kale system-ka processor-ka CPU-ga Core i5 ama Core i7 waxa ugu dambeeyay shutdown koodka shutdown means madamina had computerka ina damimo u talagan laakiin programyada oo dhamaan uu damina uu noo soo bandhiga shutdown markaan dhaho enter salaargan dhamaan programyadan hardware maintenance installation ka waxaan oo dhan plugin and plugin dhamaan shutdown wixii hardware qalabyada waxyaaba oo issues ka security failure-ki stop error-ka waxyaaba soo dhan هذا في power failure or core and plugin dhamaan waxyaabo dhan oo shutdown ayu ku soo bina